السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا السلام يا دمانتين با ومدى يقول حلان waxaan rabay maanta inaan laba arrimood ka hadlo oo Somaliland ka taagan kow nabadda waxa la yiri bari baa sida Maxamed Cabdulla Xasan baa waxaa jiray nin askartiisii ka mid ahaa oo runta sheega aan weligii been sheegin ninka runta sheega magac buu lahaa waa nin reer taleex dhulbahantaa kulley sida la ii sheegay deedna waxa la yidhi maalintii dambe uu soo shiriyay dadkii marka waxa la ninka hal mar un aynu been ku qabanno deedna dadkii raggii uu soo shiriyay rag sayidkii wuxuu yidhi haye geedkaasi ma qoyan yahay buu yidhi mise waa qallalan yahay deedna dadkii nin wali wuxuu waa qallalan ilaa sayidkaa laga baqayaa moogta waa qallalan yahay waa qallalan yahay waa qallalan yahay waa qallalan yahay kibid walba qallalan yahay waa qallalan yahay mid kasta waa qallalan yahay waa qallalan yahay ninkii baa soo maray balay timekiisii la gaaray ninkii markii timekiisii la gaaray wuxuu yidhi haddii ilaahay laga baqayona geedkaasi waa qoyan yahay dee haddii sayidka laga baqayona waa qallalan yahay sayidku ma dilina wuu iska dhaafa maalin kale wuxuu yidhi waxa la yidhi sac baa la soo xidha dibi deedna waxa la yidhi ninkaa maanta waa inaynu kashifnaa haye ninku sheekooyin badan buu leeyahy dadka badankiisu way hayaan sheekooyinkiisa dibi baa meel lagu xidhay dusuud baa lasoo qaatay xaabaa lasoo gurtay waa la shiday dabkii markii la shitay oo wixii la shitay oo dabdabta la guray oo labcayde wixii la sameeyo oo midii la lisanaya orodoo u yeedh dibigana nu qalanaynaaye nimanka halkaa fadhiya ee halkaa jooga marka nimanka in sayid ku jiraan u malaynaya nimankii buu doona isagu wixii markaa indhihiisa ku arkay uun buu sii sheegi jiray wax kale ma kuma daro dabeedna wuxuu yidhahdaa waxa la yidhi haye maxaad aragtay marka maxaad doonaysa mas-uul waxa sac baa xidhnaa buu yidhi dabna waa shidnaa mindiyana waa la lisanayay sac baa la qalanayaana waa la lahaa buu yidhi dibi baa la qalanaysa looda badanaa lama qashay marka raggu dibiyada la qalan jiray dibi baa la qalanayaa waa la lahaa buu yidhi dadkaa u yeedhna waa laygu yidhi intii uu maqlabay dibigiina sii daayeen dibigiina cararay wixiina la kala firdhiyo nimankii meesha iska fadhiyaa loo tigi markaasaa la haye hebel saasuu nagu yidhi arrintaa ka warrama iyagu way yaqaanin waa la yaqaan dee inuu intii ay tahay laakiin isaga waan jaraad loo doonaya unbay ahayd wuddi wax la waa run okay wuu iska tegey marka haatan waxaan leeyahay war haddii dee kulmiyaan anigu ahay haddii aan kulmiye iyo dowladda u xaqlinayona xisbigaa wadaniya waxay wadaan waa khaldan yahay haddii dee ilaahay laga baqayona dee xisbigaa wadani waa saxsan yahay xisbiga wadani doorashuu ku dhacay anigu dee garxajis odhan maaye xisbiga wadani ilaa garxajis odhan dagaal kuma jira waa intii wadaniye doorashuu galay wuu dhacay doorashadii kale u diyaar garoobay doorashadii kale markuu ugiyo waxaa la yidhi jala xisbigaa lagugu furaya in madeerayaal halkaasaa sarta ka qudhanto horta waxayna ahayd gobonnimo ciyaarku waxay ahayd ama ha dhacsanaato ama xisbiyada dib baa loo dhigi karaya wax jirayba ma ahayn oo hadda maanta oo kale waxa la xisbiyada laftooda inay mucaaradnimo kiciyaan oo yadaan carra dib u dhigo oo ayana qalaase kala bilaabaan baa laga yaabaa laakiin waxay ahayd maalintaa in muuse gobonnimo qaato oo uu madaxtooyada furo ayay ahayd may dhicin maanta hadda ururaa la maraya waxaa la isku haystaa commissionka weliga commissionka Somaliland oo doorasho ka dhacday maan maqal qalalaasay buuq qalay berigii riya raac mooyaane waxaa jira commissionkii inaan guddoomiyaha waraaq iska saxiixanaya inaad artaasina waa inagu khalad reality marka laga hadlo waa khalad waxaan commissionku toddoban isla saxiixino isla ogolayn dee cidina qaadan mayso kow taaba ka bood waxaan leeyahay hadda buurtaa loo baxa gacan libaax baa la fuula askar baa shalay ku dhimatay askartaa ka shalay ku dhimatayna khalad bay ahayd in gacan libaax askar loo dirooba khalad bay ahayd nimankan xildhibaanada laga cabanayo leeyaga waxaan maamulayana waxaan leeyahay horta kuwaa uga soo noqonayaa askartaasina khalad madaxweynaha waxaan leeyahay horta askar ha dirin hana maqlin dadka marka hore kale ma maqashide askar ha u dirin meesha gacan libaax dadku waa tol annagu labada dhinac wax naga dhinta dooni mayno dadkan muusanaabaya qaylinaya ma nihin dad dalka u turayaanu nahay dad caruurahoodii iyo reerkoodii iyo dadkoodii iska masaakiin yihiin oo ku nool yihiin baanu nahay shacabka Somaliland boqolkiiba 80 waa dad masaakiina masaakiinta in loo turo ayaa muhiim ah marka ha u dirin ciidan dagaal halka ayaanu ka dhicin
waxaan la hadlayaa ciro abti markii ay qadhaadhayd ee siilaanyo habar jeclo tidhi carar waanu gelaynaa lagaga shubtay taa in laga shubtay muhiim bay ahayd waa la wada ogaa oo isteeta ku cod kaga tegey keligii baa go'aan qaatay dalkuna u qaata markii dambe guddoomiye isaga madaxweynaha loo doonaya go'aan qaatayna intii kale way ka washtiriyeen way iska fadhiisteen way ku khasbanaadeen maalinta uu badbaadiyay Somaliland ayuu koobkii labaad ku qaaday isagoo bilaa hadala 59 57 something buu koobka ka dulmar maxaa lagu raacay waa wandheyga kelmadda maanta dalka Somaliland inaad kelmad u tiraahdo ayuu kaaga baahan yahay ama raacba taasina waa taa gobonnimada ninka tanaasulay ku jirtaa ninku markuu gob yahay gobonnimadu nin tanaasulay bay ku jirtaa maanta waxaan leeyahay muuse iyo ciray labadaas ay arrintu taagan tahay midow tanaasul waddankana badbaadi taasi waa taa reerka aan ka dhashay ee habar jecel mid baan leeyahay habar jecel maanta idinku cudooni maysaan madaxweyne ma tihin xisbina ma haystaan waa u dhex baa u tihiin labadaa reer ee isku haysta kursiga labadaa reer ee kursiga isku haysta u dhex baa tihiin kow garxajis waa la degtaano koone waxaan la degnaa waa garxajis habar yoonis weliba waxaan la degnaa waa habar yoonis waa is fahmaysaanoo waa qooda garanaysaanoo dad wada dhaqmay baa tihiin wiil iyo abtigii baa inta badanna tihiin waa is garanaysaan reerkana sacad muusena waa tolkeenoo meel kale ma jiraysba waa tolkeene analay siyaasadeed baad leedihiin haddaba mid baa laydinka baahan yahay idinka waxaa la idinka baahan yahay gabasha ma jirta in aad dhexda xidhataan oo dhex gashaan oo hadduu muuse khaldan yahayna aad garxajiska raacdaan dee haddii kale inagu kala dira innaga lafteena habar jecel inagu kala dira dee labada reer qolba meel ka soo jeesato waddanku ku duwi maayo laba reere waxaa weeye Somaliland baa kala baxaysa uun laba qaybood baynu noqonaynaa mid laakiin xagaynu la dagaalanaa laakiin xagaynu ka bilowna bal dalka halka laga bilaabo dilka laga bilaabo madaxtooyadaynu ka bilownaa marka waxaan leeyahay tolka u qarnaqa dalkana nabad ku soo dabaala waxaan aaminsanahay maanta dhexdhexaadinta arab iyo habar jeclo ayay dhex taallay ayuub iyo inta haadee iyaga maqan wixii baan kala garan way bateene marka waxaan leeyahay reeraha dhexdhexaad ka noqda oo ragga ishaya ee labada reeraba kala saara muusena waxaan leeyahay tolka maqal madaxweyne reer waddanina waxaan leeyahay ciro ha ka ciidaynina in madeerayaal ciro ha ka ciidaynina ka daaye dagaalka wax nabad lagu waayey olaad waxaa ma tartee ka daaye aadna waa idiin salaamayaa salaamu calaykum wixii hadalka gasocon raalli iska ahaada kooba dheha anigu idinla talinayaa anigu waxaan ahay hooyo jecel dalkeeda oo qurbaawiyad ah oo qurbaha waxa ka jira garanaysa marka bisha qure aan fasaxa ku imaado hurdada aan galo wallahi ugu gelin halkan iyo bille waxaan la dareemaa markaan suuqa dhex marayo islaamuhu mid xaydha yar shiilanaysa mid bahal yar shiilanaysa mid wax yar shiilanaysa wada hooyaa fadhida koone kasta hooya mid yarshiid iibinaysa mid cabaayad iibinaysa mid kiriim iibinaysa nabadaasay ku iibinaysaa carruur bay ku birata jaamacaday uga soo baxaan ka daaya carruurta inaga laynine dagaal waa soo marteen wax macnaa uu saar miyaad garanaysaan libina ku gaadheen no ma jirto kana libin lagu gaari maayo tolkay waxaa leeyahay dhexdhexaad ka noqda meesha sheekada dhexdhexaad ha laga noqdo aadna waa idiin salaamaya dhammaantiin asalaamu calaykum